qisada koowaad haddaan soo qaato waxa weyn ama sheekada koowaad waxay ku saabsan tahay waxa ku saabsantay oday da'a oo dalka Faransiiska ku nool oo Turki oo Muslim ah ayaa waxa uu lahaa dukaan buu lahaa dukaankiisaas wuxuu ku iibin jiray khudrawaadka iyo muxuu ahaayay waxa la runtii cuntooyinka ah ee dadku ay u baahan yihiin ayuu ku iibin jiray odayga runtii muslimka ah ee Turkiga ah magaciisa waxa la oran jiray Ibrahim waxa la jaar ahaa reer Yahuudiya ayaa la jaar ahaa reerka Yahuudiga waxay dhaleen ilmo yar oo da'diisu ay ahayd 7 jir oo magaciisana la yiraahdo Jaad reerka Yahuudiga markay rabaan alaab inay soo iibsadaan oo dukaanka ka soo iibsadaan waxay u diri jireen inan kayre Jaad la yiraahdo ay dukaanka u diri jireen si uu uga soo iibiyo Jaad waxa uu ahaa nin dhalinyar ah da'diisu aad u yar tahay maalin kasta wuxuu tagi jiray dukaanka uu leeyahay odayga weyn ee Ibrahim la yiraahdo ee muslimka ah ay dukaankiisa tagi jiray oo alaabta ka soo iibin jiray laakiin wuxuu sameyn jiray inan kayre Jaad la yiraahdo maalin kasta markuu soo iibinayo alaabta wuxuu ka soo xadi jiray dukaanka xabad chocolate ka soo xadi jiray isagoo hawshii sida ku wada oo maalin kasta xabad chocolate soo xada ayaa maalimaha kamid ah ayaa Jaad waxa uu ilaabay xabadii chocolate uu soo xadi jiray ayuu ilaabay markuu ilaabay ee uu iska baxay ayaa waxa ka daba yimi odaygii Ibrahim ba ka daba yimi Ibrahim markuu ka daba yimi uu u yeeray inay ka yiraajad waxa uu ku yiri waxaad ilowday xabadii chocolate-da ahayd ayaad ilowday Jaad u nax wuxuu ogaaday in sirtiisi la ogaaday inuu xado chocolate-ha ayuu fahmay isagoo naxsan baa waxa uu yiri miyaad fashilanaysaa ma reerkaadii sheegaysaa mise booliskaadii ugu yeedhaysaa odayga Ibrahim wuxuu ku yiri boolisna kugu yeedhi maayo reerkiina u sheegi maayo laakiinse shardi baa kugu xidhan shardigan kugu xidhaya waa maxay shardigaasi waxa weeyaan maanta laga bilaabo inaana dib aanad wax u xadin anigana aanad waxba iga xadin cid kale aanad waxba ka xadin haddaad balanta qaado ana cid u sheegi maayo waliba wuxuu ugu daray maalin kastana aniga ku siinaya xabad chocolate oo bilaasha yarkii Jaad aad buu ugu farxay bartii wuxuu ku ballan qaaday maanta laga bilaabo inaanu dib wax u xadin halka uu xadniinka ku joojinayo arintii halkii bay ka sii socotay Jaad maalin kasta dukaanka uu soo galo odaygu Ibrahim wuxuu siiyaa xabad chocolate buu siiyaa oo bilaash u siiyaa kiyara wuxuu aad u jeclaaday odaygiiba aad u jeclaaday mucaamaladoodiiba aad u sii wanaagsanaatay aad buu ugu xidhnaaday kiyara uu koray uu weynaaday waxa dhacay markasta oo Jaad ay mushkilad la soo waajahdo markasta dhibaato qabsato waxa uu tagaa odayga isagoo tala weydiinaya tusaale weydiinaya odaygu muxuu sameeyaa odaygu wuxuu sameeyaa markasta uu Jaad u imaado oo uu la imaado mushkilad haysataa wuxuu sameeyaa intuu galo maxay dukaankiisa ayuu sanduuq la soo baxaa sanduuqa markuu la soo baxo ayuu sanduuqa wuxuu ka soo dhex saaraa kitaab uu ka soo dhex saaraa kitaabka markuu ka soo dhex saaro ayaa Jaad wuxuu ku yiraahdaa ii sheeg ay safxad kasta oo bog kasta oo kitaabka ku yaala ii sheeg safxadun ii tilmaam safxadaad ii tilmaamto ayaan mushkiladaada ka soo dhex saaraya xalkeeda Jaad wuxuu yiraahdaa safxada soo saar safxadii boggii markuu soo saaro muxuu ahaay odayga Ibrahim oo akhriya Ibrahim baa oo akhriya Ibrahim markuu akhrinaya safxada ku taala kitaabka dhexdiisa wuxuu ka tusiyaa in ka yara Jaad mushkiladii haysatay xalkiisu ka tusiyaa halkaas ayuu Jaad xalka ku helaa labada safxadood ee uu akhriyay Ibrahim dhexdooda ayuu xalkiisa ka helaa mushkiladii haysatay xalkeeda halkaas uu ka helaa markaas uu iska tagaa markaas ay mushkilad ku dhacdo dukaanku imaada Ibrahim buu imaada mushkiladiisu u sheega Ibrahimna wuxuu la soo baxaa kitaabkaas uu la soo baxaa sanduuqa ugu dhex jira kadib wuxuu yiraahdaa ay bog alla bogaad rabta soo saar kitaabka bog doono markuu soo saaro muxuu hay Jaadna waxa safxada dhexdeeda looga soo saaraa inta loo akhriyo loo sharxo mushkilada haysata xalkiisa sidii arintu ay sidaa u ahayd ayaa muddo ka bacdi waxa dhacay
odaygii Ibraahim baa xanuunsaday odaygii Ibraahim markuu xanuunsaday ayaa wax dukaankii soo boqday jaad isagoo odaygii raadinaya markaas loo sheegay odaygii inuu xanuunsanayo oo uu dhakhtarka ku jiro waxa dhacay ayaa ka bacdiba odayga waa dhintay odayga markuu dhintay inamadiisii buu iskugu yeedhay waxaanu kula dardaarmay inamadiisii sanduuqa halka yaala in sidoo u dhan yahay lagu wareejiyo in ka jaad la yiraahdo inamadu u dhalo odayga Ibraahim ma garanayaan sanduuqa waxa ku dhex jira ma garanayaan laakiin iyagoo dardaarkii abo fulinaya ayaa sanduuqii qaadeen waxaana u geeyeen in ka yaraajad ba u geeyeen jaad sanduuqii marka leeyahay waxa ku soo hadiyeeyay ku siiyay odayga Ibraahim la oran jiray aad buu ugu farxay aad markuu ugu farxay sanduuqii buu furay sanduuqii markuu furay wuxuu arkay kitaabkii oo ku dhex jira wuxuu ogaaday kitaabkan inuu ahaa kitaabkii mushkilkiisa oo dhan xalin jiray kitaabkii wax kasto ku imaada uu odayga Ibraahim ka baari jiray inuu yahay buu ogaaday aad buu ugu farxay maalimaha kamida ayaa mushkilad ku dhacday inkii yaraajad la oran jiray mushkilada markay ku dhacday ayuu kitaabkii soo qaaday kitaabka isagu ma garanayo waxa ku qoran luqadda ku qoran ma garanayo wuxuu raadiyay cid taqaan luqadda kitaabkan uu ku qoran yahay wuxuu raadiyay wuxuu helay in yaro Tuunisiya oo luqadda Faransiiskana ku hadla runtii luqadda Carabina yaqaan inankiibu ku yiri waxaad ii soo saartaa safxadda intaas safxadii marka loo soo saaray ayuu ku yara Tuunisiga ku yiri bal ii macnee waxa ku qoran safxadaha waxa ku qoran ii macnee markuu yarkii Tuunisiga u macneeyay safxadaha waxa ku qoran uu ooyay jaad uu ooyay muxuu la ooyay mushkiladiisa xalkeedii buu ka helay kadib waxa uu ku yiri yarkii Tuunisiga ahaa kitaabkan muxuu yahay kitaabkan ma sixir baa muxuu yahay kitaabkan mushkilad ka soo haysata xalkeeda waan ka helayaay muxuu kitaabkan yahay wuxuu yarkii Tuunisiga ku yiri kitaabkan waa kitaabkii Quraanka ahaa ee lagu soo dejiyay Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabiga Muhammad waa nabiga ugu dambeeyay nabiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo diray marka kitaabku waa kaas kitaabkana waxa iska leh dadka muslimiinta ah iska leh oo ku dhaqma oo runtii muxuu ahaayay oo iska leh jaad wuxuu ugu jawaabay haddaba waayahay intuu aad u farxay sidee baan muslim u noqon karaa waxaan rabaa muslim inaan noqdee sidee baan muslim u noqon karaa halkeeba waxa uu sheegay sidoo muslim u noqon karo waxa uu sheegay inuu ashahaato kadibna uu muxuu ahaayay sida islaamka ku soo galo in kiira jaad waa shahaati isagoo dhalinyara markuu ashaas islaamkii buu soo galay markuu islaamkii soo galay ayaa wuxuu bilaabay inuu dacwada Ilaahay faafiyo waxa la yiraahdaa muddo runtii kooban gudahood ayaa intaas oo boqolaal qof intaas oo kumaakun ay ku islaamay dacwadii jaad muddo ka bacdi waxa uu tagay wadanka Afrika ayuu tagay waxa uu la baxay magac loo yaqaano jaadullah alqur'aani ayuu la baxay 30 sano ayuu islaamka ka waday wadanada Afrika waxa lagu tilmaamay malaayiin qof inay ku soo islaameen dacwadiisa lagu soo islaameen Safad Hijazi waa caalim macruuf oo aad loo yaqaano caalim islaami waana daaci waxa uu sheegay mar uu tagay wadanka Switzerland waxa ay ku kulmeen waxaan ku kulanay buu bartaa nin ka yimi wadanada Afrika oo odayo gaboobay odaygiiba waxaan ku iri buu yiri ma taqaana jaadullah odaygiiba ooye saanu aqoon buu yiri odaygiiba wuxuu weydiiyay buu yiri adigu miyaad garanaysaa ها وان قرنا يابان كويريو مدة هر بان محو هاي كوكولنا ودن سويسرلاند كوكولنا أون سلامي أذيك بقى أدو أويي وحن كفر أحسن هبير أنتو أدو سلامتي وقعن قاضي إن السلامتي جهد الله إن السلامتي إن أدو كفر أحسن هبير أذيك بكويري أفريقيان كاها أذيك موحى كسو إسلامي جهد الله بقى كسو إسلامي ما يبير أنا إموصى إسلامين لكن إذا الدكتور كي يسوقه إسلامي أيا أنا قرأ إسلامي أنا تصوحي تلماميسا إسلامني ما إسلام كفافي هل كجرا جهد الله أي تلماميسا ضاوذ جهد الله وحاول هوي ولها هوذيات بأحد أنت هو دعوة وذي ما إسلامين لكن سمركو دينتي أو 2003 أحد جهد الله مركو دينتي 6 سنة كبعدي أي هوذي إسلامت إذا شكتين أو إسلامتي إن كيداسي صبركي يكونتي وناقي يسمى فركي أي كأركتي درتينا كو إسلامتي halkiiba hooyada ku islaantay isaguna tuusan turiga boonta Ilaahay una xariistay islaamkana sidaas uga faafiya caalamka oo dhan dawada qisadan maxay tilmaamaysaa qisadan waxa ay tilmaamaysaa
ee ugu muhiimsan waxa weeyaan akhlaaqda iyo muhiimadda ay leedahay odayga yar ee dukaanka haystay ee Turkiga ahaa run ahaantii wax kala muuqaban akhlaaq wanaag buu tusay inay ka yara dhalinyarta haddii maalintii ugu horeysay uu ka xaday chocolate baa uu qabsan lahaa ama uu ku qeyrin lahaa ama uu dili lahaa inay ka yarmo islaameen laakiin wanaagii akhlaaqdii uu tusay iyo qaabka uu la dhaqmay ayaa waxa ku abuurtay jacayl ba ku abuurtay inaan ka yaray jaadullah la oran jiray taasoo keentay markii dambana inuu islaamo dawada waxa kale oo laga faa'iideeyaa in qofka marka ama muslim ama gaalku doonahaade inaad si wanaagsan ula dhaqanto qofkii gaalka inaad si wanaagsan ula dhaqanto oo akhlaaq wanaagsan aad kula dhaqanto waa mid islaamku ina farayo akhlaaqdu ma kala laha kana sidan ula dhaqan waa muslimne kana sidan ula dhaqan ma kala laha akhlaaqda wanaagsan oo dhan haday run tahay haday cadaalad tahay haday taa Allah subhanahu wa ta'ala qaadasho tahay dhammaan akhlaaqda wanaagsan oo dhan wax la ina amray muslim iyo gaalba in si fiican ula dhaqano laakiin sheekadu haday noqoto cidana sidaan aan ula dhaqmayaa kana sidaan aan ula dhaqmayaa run ahaantii waxay keensanaysaa in wax badan qaab aan sax ahayn islaamka ay dadka u gaarsiinay keensanaysaa dawada waxa kale sheekada sheegaysaa quraankeena wax kasta inay ku jiraan rasuulku wakiilaha sallallahu alayhi wasallam waxa ku jira quraanka dadkii inaga horay khabarkoodii waxa ku jira quraanka kuwa ina soo socda waxa dhici doona khabarkoodii baa ku jira waxa ku jira xukunkii aan isku xukumi lahayn iyo systemka iyo wax kasta u baahanahay dunidan dhaxdeeda waa ku jira quraanku laakiin waxa loo baahan yahay fahamkii saxda ahaa ee soo saari lahaa ayaa loo baahan yahay ruuxantii qisaas waxay tilmaamaysaa markaa in akhlaaq wanaag aynu la nimaano oo dhaqanka wanaagsan aanu dadka ku abuurno waxay kala tilmaamaysaa dacwada marka laga hadlaayo ma kaliya sheekh weyn oo caalimo ah noqoto odayga yar isagoo dukaan yar haysta oo qolkiisa iska fadhiya ayuu dacwada Ilaahay faafinay oo waa kam intaas oo qof oo islaamay maanta malaayiinka ajir buu ku wada leeyahay dhamaantood qolkiisa dukaankiisa wax ku iibinay marka way fududahay in dacwada aad faafiso ma kaliya qofkii wax yaqaan kaliya qof kasta intuu yaqaan ayuu faafinaya dawada qisadaasi hadeen halka ku dhaafro